gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Marwo Basma Caamir ayaa waxay shacabka Muqdisho ku baaqday inay raacaan talaabooyinka ay soo jeedisay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya si looga digtoonaado faafinta cudurka coronavirus oo kiiskii ugu horeeyay shalay ay ku dhawaaqday wasaaradda caafimaadka in laga helay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. waxaan rabaa inaan isxasuusino Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri haddii aad aragtaan halaag ama abaaro ama cudurro inaan kaashano kalaamka Ilaahay quraanka Ilaahay waxaa loo soo dejiyay muuminiinta raxmad iyo caafimaad inaan kitaabadan gadaal ugu noqono inaan quraankeena aqrisano maadaama aan nahay dad muslimiin boqolkiiba boqol caafimaadka wuxuu ku jiraa aayadaha Ilaahay inaan aqrisano quraanka Ilaahay alla tala saarano culimada Soomaaliyeed waxaan leenahay in masaajidada wacyigelintii masaajidaha ummadda loogu wacyigeliyo in quraanka masaajidaha lagu aqriyo qoysaska Soomaaliyeed guryahooda ay ku aqristaan dawladda Soomaaliya dadaal badan ayay ugu jirtaa sida looga hortagi lahaa cudurkaaniti oo adduunka ku wada faafay alxamdulilaahi rabbil caalamiin annaga qofkii ugu horeeyay in dawladda ay gacanta ku hayso aysan magaalada lagu sii deynin taxadirka ayay ka mid tahay ummadda Soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaan ugu dardaarmo ama aan ku wacyigelino inay ku dadaalaan boqolkiiba boqol nadaafadda sidaad ogtihiinba annaga boqolkiiba 90 nadaafadda ummadda Soomaaliyeed way ku dadaashaa ama muslimiinta sababtoo ah maalintii 5 jeer ayaa la weyse qaataa weyse qaadkoo laga bilaabayo gacmaha taasi ayaaba ahba dadaalka ugu horeeya Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo nagu bilaabay marka inaad sidaas u ogaataan inaa walaaca badan la yareeyo in la yareeyo guuxa badan in la dadaalo maanta waxay u baahan tahay dadaalid iyo in diinta dib loogu noqdo aad iyo aadaan u soo dhaweynayaa cid walba oo wacyigelin ka sameynayso cid walba oo dadaalkaasi tahayso u horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wasaaraha xukuumadda sidaad ogtihiinba dadaalka uu socdaa gurmadka uu socdaa laakiin bulshada Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inay eegana qayb ay ka qaataan ay dadaalaan ku dadaalaan caruurtoodii iskuulaadkii in lagu dadaalo dugsiyada quraanka ay aadayaan caruurta in lagu dadaalo in caruurtii laga taxadiro qof kasto muwaadin Soomaaliyeed oo asaga iska taxadiro dawladana ee dadaalka ee wadana la kaalmeysto laakiin waxaan rabaa maanta inaan ku wacyigeliyo inay ku dadaalaan aqrinta quraanka maadaama quraanka raxmadda Ilaahay iyo caafimaadkii ee muuminiinta ay ugu sugnaatay in kaafiriintana halaag ugu sugnaatay intaasi lagu dadaalo in lagu dadaalo sunnada rasuulka iyo ducooyinka rasuulka uu ku duceysan jiray ayadana in la qaato marka aad iyo aadan u soo dhaweyneynaa insha Allah waxaan rabaa inaan isku wacyigelino wacyigelinta magaalada ay ka bilaabanayso qayb ay ka noqdaan bulshada Soomaaliyeed ee meel walba ay joogaanba waxaan idin leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan u dhawaano dad muslimiin maadaama aan nahay boqolkiiba boqol waxaan rabaa maanta intaasii inaad tusaale idin noqoto meel walba aad joogtiin waxaan Ilaahay ugu baryeena inuu dalkeena caafimaad iyo cimri dheer dadka Soomaaliyeed uu siiyo Ilaahay ugu baryeena waxaan dalkeena Ilaahay ugu baryeena masiibada adduunka ka jiro inta haysatan Ilaahay inuu ka badbaadiyo muslimiinta cid walba oo xanuunsanba inuu Ilaahay caafimaad siiyo annagana dalkeena inuu Ilaahay ka xijaabo dhibaatada adduunka ka jiro aan dalkeena Ilaahay inuu naga qabto aan ducadeena badsano Soomaaliya waxaan idin leeyahay aan duceysano oo mahadsantihiin cudurkan oo ay ka qaliyeen adduunka ayaa si xorri ah maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ugu faafiyay caalamka Maxamed Cabdi Bariye CWTV Muqdisho.